Asalaamu calaykum. Macron iyo Erdogan oo ku sugnaa shirki ka dhacay Berlin ee horrayntii sanadka loogaga hadlay xaaladaha Liibiya. Hadalhayn badan ayaa ka dhalatay khudbaddii madaxweynaha Faransiiska ee uu kaga hadlayay arrimaha Islaamka toddobaadkii la soo dhaafay, taasi oo shaaca kaga qaaday qorshe uu ku doonayay inuu ku meelmariyo sharci adag oo uu ku sheegay inuu ku xakameynayo waxa uu ugu yeeray Muslimiinta gooni u goosadka ah. Wuxuu sheegay in qorshahan lagu beegsanayo dhammaan dhaqamada ururada xagjirka ah iyo kuwa arrimaha diinta adeegsanaya, kuwaas oo su'aal gelinaya Jamhuuriyadda Faransiiska, sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta dalkaas. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa hadalka ka soo baxay Macron ku tilmaamay mid daandaansi ah oo aanay ku dheehnayn wax asluub ah. Doodan ayaa imaanaysa xilli labada dal uu ka dhex taagan yahay khilaaf siyaasadeed, balse haatan arrinta ayaa isku beddeli doonta mid diimeed, sida ay sheegayaan dadka ka faallooda siyaasadda gobolka. Xaaladda Liibiya ayaa noqotay arrinta ugu weyn ee khilaafka badan ka dhex dhalisay madaxweyne Macron iyo madaxweyne Erdogan. Xukuumadda waxay taageersan tahay dowladda Qaramada Midoobay ictiraafsan tahay, halka Faransiiskana uu taageerayo Generaal Khalifa Haftar. Xiisadda ayaa sare u sii kacday bilooyinkii la soo dhaafay kadib markii Turkiga uu markab shidaal baaris ah u diray xeebta Mediterranean-ka. Giriigga iyo Turkiga ayaa waxaa ka dhex taagan xiisad ka dhalatay howlaha shidaal baarista. Xilligaas Faransiiska wuxuu ku dhawaaqay in ciidamo militari ah uu u diri doono gobolka si ay u taageeraan Giriigga. Dadka falanqeeya siyaasadda gobolka waxay rumaysan yihiin in Macron iyo Erdogan ay adeegsanayaan hadallo ku saabsan diinta si ay u xoojiyaan hadafyadooda siyaasadeed. Ma ahan markii ugu horreysay ee Erdogan uu soo hadal qaado arrintani. Wuxuu doonayaa in kaalin weyn uu ka qaato dunida Islaamka, ha ahaato taageeridda dalalka Carabta ama inuu dareenka la qaybsado malaayiinta Muslimiinta ah ee ku nool dunida dacaladeeda. Faransiisku wuxuu doonayaa in kaalin weyn uu ka qaato siyaasadda Midowga Yurub, xilli dalkiisa ay ku nool yihiin Muslimiinta ugu badan ee Yurub. Waana arrin taariikhi ah laga bilaabo ololihii generaalka u dhashay Faransiiska ee Napoleon uu ka waday Masar. Qabashadii Algeria waana arrin xusuus badan leh oo dhibaato ku ah Muslimiinta. Waxyaabaha sii xumeynaya xiriirka Turkiga iyo Yurub ayaa waxaa ka mid ah hadal ka soo baxay qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha Yurub, waxaana ka mid ah madaxweynihii hore ee Faransiiska Nicolas Sarkozy oo yidhi, arrinta aan suurtagalka ahayn ayaa waxay tahay in Midowga Yurub uu ku soo biiro dal ay ku nool yihiin 80 milyan oo qof. Alain English oo ah wariye iyo khabiir u dhashay dalka Faransiiska ayaa BBC-da u sheegay in kala aragti duwanaanshaha Macron iyo Erdogan uusan ku saabsanayn dagaal dhanka diinta ah, balse arrimaha diinta ay u adeegsanayaan inay ku soo leexiyaan xiisadda siyaasadeed ee aloosan gobolka. Islam Oskan oo isagana ah khabiir u dhashay dalka Turkiga kana faallooda arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in arrimaha diinta ay kaalin weyn ka ciyaarin siyaasadda Turkiga, balse loo adeegsado ka hadalka arrimaha dhaqanka. Islam Oskan wuxuu yidhi, mas'uuliyiinta Turkiga waxay arrintan u adeegsadaan sidii ay awoodda ku sii hayn lahaayeen. Gaar ahaan Erdogan wuxuu adeegsanayaa arrin aanan qaabilsanayn diblomaasiyadda oo qoto dheer si uu u soo bandhigo tallaabooyinkiisa madaxa bannaan. Sanadihii 60maadkii iyo 70maadkii Faransiiska waxaa ka jiray falal cunsurinimo ah oo ka dhan ah Carabta. Dadka Faransiiska iyo Carabta waxay aaminsanaayeen in dadka soo galootiga ah ay ugu dambeyn dib ugu laaban doonaan dalkooda. Durbadiiba Faransiiska wuxuu arkay in Islaamka ay noqotay diinta labaad ee laga aaminsan yahay dalkaas, taas oo cabsi ku abuurtay Faransiiska, kuwaas oo aan waxba ka ogeyn diintan. Cilmi-baaraha u dhashay dalka Turkiga Islam Oskan wuxuu sheegayaa in saameyn xun ay ka dhalan karto hadalka Macron ee dhanka Islaamka. Waa nin reer galbeed ah oo aan wax shuqul ku lahayn diinta Islaamka. Haddaba daawade, mawduuceena intaas ayuu ku dhan yahay. Haddii aad videoga maanta ka heshay, ha iloobin inaad subscribe noo saarto barta YouTube-ka aan ku leenahay ee GUHAR PRO. Mahadsanid.